madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro oo waaga warbaahintu tabinaysay inuu cabsi ku nool noqday uusan banaanka u bixin hurdadiina ka tagay kadib markii Mareykanku ku hanjabay inuu khaarijin doono ayaa dhawaan soo bandhigay muuqan. waa muuqaal tusaya isagoo gaari ku wata mid ahaan dariiqyada mashquulka ah ee caasimadda dalkaas Caracas wuxuuna isla goorta muujinayaa inaysan jirin ilaalo ku gadaaman oo dhinacyadiisa socota halka uu ku dhawaaqayo weero ay ka mid tahay inageeya baarsiga iyadoo saaxiibadiisa la socdaana tilmaamayaan inaysan jirin cabsi iyo jahwareer Maduro la dhibtoonayo. waxay dhaheen cabsibaad banaanka ula bixi la'dahay iyo jahwareer ayaad ku sugan tahay balse halkan xaaladdu caadi ayay u muuqataa. bartamihii sanadkan Mareykanku lacag $50 milyan gaaraysa ayuu tilmaamay inuu ku abaalmarin doono ciidii fududeysa soo xiridda ninkan taasoo ay haatan dheer tahay askarta tirobeelka ah iyo hubka culus ee Mareykanku ku daabulayo gobolkaas taasoo la odorasayo in ujeedada ugu weyn ee Mareykanku ka leeyahay tahay in culayska lagu kordhiyo Maduro si uu ugu dambeyn xilka uga dego. dhawaan waxa la wariyay in laamaha sirdoonka Mareykanku ku hawlan yihiin qorshe lagu khaarijinayo ninkan ka oo baa la yiri laga fulin doono gudaha Venezuela waxayna u muuqataa in hanjabaadaas Maduro kaga jawaabay muuqan uu magaaladiisa dhex mushaaxayo kaasoo uu dunida ku tusay inuusan cabsi ku nool ahayn. docda kale wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya gobolka Caribbean-ka ayaa tusaya diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Mariniska Mareykanka kuwa la yiraahdo Harrier Jetska oo Mareykanku halkaas ku daabulayo midaas oo tustay in xukuumadda Mareykanku wali sii wado dhaqdhaqaaqyada baqdingelinta ama dagaal isu diyaarinta midkood ah ee ka dhanka ah Venezuela.